wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. wasiir Fiqi ayaa khudbadiisa si adag ugu dhaliilay damaca guraacan ee dowladda Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha dhulka Somaliland ee ka tirsan Soomaaliya, isagoona xusay in Itoobiya ay colaadda ka jirta gudaheeda ay indhaha ka qarsanayso kuna mashquulsan tahay sidii ay ku qabsan lahayd dhul Soomaaliyeed ayuu yiri. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale khudbadiisa ku soo bandhigay in la qabtay hub sharci darro ah oo Itoobiya ka yimid kaasi oo lagu hurinayo colaad maxli ah oo awood siinaysa kooxaha xag jirka ah, wuxuuna tallaabooyinkaasi ku tilmaamay wasiirku xadgudub cad oo lagu sameeyay madax bannaanida Soomaaliya. wasiir Fiqi ayaa sidoo kale xusay taageerada howlgalka kumeel gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS in wax badan uu ka qabto dagaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish. ugu dambeyntii wasiir Fiqi ayaa khudbadiisa ku xaqiijiyay in Soomaaliya ay ka go'an tahay la shaqaynta dhinacyada amniga iyo maamulidda, waxaana uu mahad celiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.